الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي وحان كبرنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى دنبغان يكي والدكان بينو إنو دافو bisha ramadaanna barakadeeda iyo khayrkeeda uu ina waafajiyo kuwa naarta laga xoreeyeyna ilaahay haynagu daro xanuunadan wareegaya ee adduunkii ku baahayna ilaahay hayna garamariyo inta ku dhiban ee u xanuunsan iyo inta dhibaatada iyo murugadu haysana allah ka qaado. maanta walaalayaal xalaqadeena labaad ee xagga adkaarta waxaynu soo qaadanaynaa laba xadiid oo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wassalaam. xadiidka koowaad waa xadiid uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam in ilaahay uu faraj uu qofka ku siinayo kurbada ilaahay kaga faydayo. ibn abi dunya ayaa ku wariyay bisanadin saxiix inuu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam kalimaatu lfaraj kelmadaha ilaahay uu kurbada ku faydo ee dadka farajka ilaahay uu ku siiyo kurbadoodana ku faydo waxaa weeye laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim, laa ilaaha ila allahu alcaliyu alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati asabci wa rabu alcarshi alkariim. kelmadahaas wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam in ilaahay uu faraj ku siinayo qofka dhibaatadana kaga faydayo. waa adkaar aada u xoog badan oo lehi nabigu calayhi salaatu wassalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala awood iyo waxdaaniyo loo qirayo ilaahayna kurbada qofka kaga faydayo. aan ku celiya mar labaad laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim, laa ilaaha ila allahu alcaliyu alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati asabc wa rabu alcarshi alkariim. wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam inuu ilaahay kurbada ku qaadayo farajna ilaahay inagu siinayo. dikriga labaad waa xadiidkii saxiixa ahaa isna ee abi hurayra saxiixaynkana ku soo arooray iyo keyrkoodba. wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wassalaam kalimataani khafiifataani cala allisaan thaqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim. wuxuu leeyahy nabigu sala allahu alay wasalam laba kelmadood oo carabka ku fudud oo carabku uuna ka daalaynin oo in la xifdiyaa aynan adkayn qofkuna isagoo oo shaqo ku jira iyo isagoo free time haysta, isagoo socda, isagoo jiifa iyo isagoo fadhiya intaba ay isugu mid tahay. labadaa kelmadood wuxuu nabigu alay slat slaam khafiifataani cala lisaan carabka way u fududtahay, thaqiilataani fi lmiisaani miisaanka aakharana qofka way u cuslaynayaan, xabiibataani ila araxmaan ilaahayna wuu jecel yahay. wuxuu nabigu ku sheegay labadaa kelmadood ee saddexdaa tilmaamood leh carabka ay ku fudud yihiin, miisaanka aakharo ay qofka u culaysinayaan, ilaahay oo jecel. wuxuu ku sheegay nabigu alayh slat slaam inay yihiin subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim. saasuu lehy nabigu calayh isalaatu wassalaam. marka labadaa adkaar oo midna ilaahay kurbada ku faydayo farajna inoogu furayo, midna uu nabigu ku tilmaamay allana inuu jecel yahay, miisaanka aakharana ay qofka u cuslaynayaan, carabka qofka bini aadankana ay ku sahlan yihiin, aynu ku dadaalo walaalayaal. ilaahayna waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu inagu daro kuwa ilaahay jecel yahay ee miisaankaada aakharo ilaahay u cuslaynayo. wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.